السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسر هذا عشر كنا مانتا انتان قد قلنا عشر كنا فضلنا معك عشان هذا النص بتاعنا سبسكرايب ونصارت اللايك and share شعبوا شير قلي سي وقف إذا سان عشان هذا مرة بسوينا وحي فرينا وحن نوري بكرتا أما عطسية دا دوني سو حن نوري بكرتا قيبتا كومنتسك عشر كان توسو قد قلنا English to Somali conversation wada sheekaysi heer gaaban meeshan waxaa wada hadlayo Rayaan iyo Bella. Rayaan waa magac, Bellana sidoo kale waa magac. Rayaan qofka hore Bella wuxuu leeyahay hi Bella, hi Bella ayuu yiri. Bella wuxuu yiri hi, how are you, sidee tahay? How are you? Sidee tahay? Rayaan wuxuu yiri fine and you? Waan fiicanahay, adigu sidee tahay? Bella wuxuu yiri fine, anigu waan fiicanahay. Thanks. Fine, anigu waan fiicanahay. Thanks, mahadsanid. Rayaan wuxuu yiri where are you going? Xageed u socotaa? Where are you going? حاجة زعتها. Bella wuxuu yiri actually dhab ahaantii I am free in this period. xilligan anigu free ayaan ahay oo wax shaqo ah ma lihi. I am free anigu waxa waaye wax shaqo ah ma lihi ama bilaa shaqo ayaan ahay. Free ayaan ahay in this period xilliyadan period waqtiyadan ayaa wada xilliga hadda la joogo. I was just wondering ama wonder waxa loo isticmaalaa yaab oo kale ayaa loo isticmaalaa laakiin meeshan I was just wondering what to do waxa la wada waxaan sameeyo ayaan garan la'ahay oo bilaa shaqo ayaan ahay camal waaye. Rayaan wuxuu yiri I am going anigu waxaan u socdaa to the canteen meelaha shaaha iyo macmacaankii laga cuno ayaan u socdaa. meelahaas ayaan u socdaa. Can you join? mi u soo darsamaysaa oo mi raacaysaa? I am going anigu waxaan u socdaa to the canteen meesha la yiraahdo canteen waxaa la dhahaa Soomaalihan canteen Soomaali badanaa canteen ayaan u maleeyaa laakiin canteen waxaa la dhahaa meelaha shaah laga cabo oo waxyaabaha macmacaan laga cuno dukaamadaas ayaa la canteen. Can you join? oo mi soo raacaysaa oo mi u soo darsamaysaa? Join ku darsasho wax lagu darsamaya ayaa la dhahaa. Can you join? mi u soo darsamaysaa oo mi raacaysaa? Bella wuxuu yiri okay haye inshallah taala casharkeena maanta inahan ayuu ku yahay. wixii farina waxaan ugu reebta kartaa qaybta comments-ka. Assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.